Waxay ahayd markii iigu horreysay in ka shaqo bilaabay shirkadda Boba Ice oo lagu gadi jiray markaas cuntooyinka fudfudud. Waxa aan iska ahaa mid iska caadi ah, balse markii ugu horreysay aan shirkadda ka shaqo bilaabay waxay ahayd mid aad iigu dhib badan maadaama ay shaqadii igu cusbayd aadna iigu cuslayd. Waxaasoo dhan kasii darnayd haweeneyda ka mid ah markii uu inoo soo galay nin aad u feeri weynaa, dadka caadigana ka duwanaa. Wuxuuna u ekaa mid ka mid ah dadka guriga la'aanta ah oo bannaanada seexda. Wuxuuna dalbaday cuntooyin sida sandwich iyo waxyaabo kaleeto oo fudfudud. Dhammaanteen waan wada yaabnay ninkan wax ka khaldan iyo qaabka uu u yaallo. Meesha ayuu fadhiistay waxaana bilaabay inuu indhaha meelaha ku fiirfiiriyo. Wuxuuna bilaabay inuu qof aan la arkaynin la hadlo. Asxaabteeda aad ayay u sii cabsadeen, dhammaanteen waxaanayna kuwa dhalinyaro ah. Markiiba waxaan u dalbay cuntadii uu rabay, isaga intaas wuu hadlayaa, wax uu la hadlayna anaga kuma naqaano. Aniga habeenkaas caloosha ayay xanuunaysay, ma aqaan cabsi daraaddeed miyaa mise wax kale, balse waan soo cararay. Markiiba waxaan soo aaday dhanka iyo musqusha. Waan soo cararay musqushii ayaan soo galay. Maadaama ay caloosha aad iigu xanuunaysay waxaan ku yara dahay musqusha, balse waxaan halbar maqlay qof musqusha soo galay. Waxaana dareemay inuu qofkan yahay ninkii guri la'aanta ahaa. Wuxuuna bilaabay inuu musqusheeda soo gargaraaco ama musqusheeda soo riixo. Midaasoo iga dhigtay inaan aad u sii cabsado. Waan yaabay maxaa ka khaldan. Hal mar ayuu nafsiga soo fiiriyay, waxaana ku dhahay maxaa ka khaldan mudane, musqusha in lagu jiro soo ma jeedid. Wuxuuna igu yidhi iga raali noqo, waxaan islahaa musqusha cidna kuma jirto way riixan tahay oo keliya. Markiiba waa iska dhaqaaqay, waxuuna galay musqushii kale oo ugu geysisay. Anigii waan yaabay ninkan wax ka khaldan iyo qaabkiisa. Waxaana maqlay inuu bilaabay cunista sandwichkii aan u dalbayay. Anigii yaab qofkan wax ka khaldan iyo wax ka sida ah. Waan kacay anigoo jaraynaya, surwaalkaygaan xirtay. Markiiba waxaan bilaabay inaan baxo. Markii aan saas u soo baxayna waxaan dareemay ninkii inuu joojiyey cunista cuntadii uu cunayay. Tartiib ayaan u socday si uusan ii maqlin. Waan soo gudbay oo waan soo maray. Markii aan albaabkiisa saa u soo hormaray ayaan dareemay inuu albaabkii soo furay oo isna soo baxay. Balse markaan way ka duwan tahay markii kale. Wax dhar ahna ma qabo oo wuxuu u soo baxay keliya soo qabo buumo yar. Jirkiisana waan la yaabay oo wuu jeexnaa oo wuu isxagtay isaga dhan. Waan yaabay, waan is hor istaagay. Waxaana ku dhahay maxaa kaa khaldan. Waan yaabay siduu ninka ii hor taagan yahay iyo qaabkiisa iyo suu u yaalay iyo indhihiisa kala jiidsan iyo jirkiisa jeexjeexan. Wuxuu dhahay ii caawi, inaad ii caawiso ayaan u baahanahay, fadlan waan ku baryayaa ii caawi. Isagoo aad u dheedayo waxaan ku dhahay mudane maxaa kaa khaldan, dhar la'aan baa batay, maxaan ku caawiyaa. Wuxuuna igu yidhi waxaad igu caawin kartaa dharka inaan xirto, waan ku baryayaa inay ii caawisid ayaan u baahanahay. Iyo qayle iyo wax aad mooddo inuu ooynayo. Wuuna igu soo sikanayay, anigana gadaal ayaan u sii baxayay. Arrinta ayaa aad iigu cuslaatay. Wuxuuna bilaabay inuu aad u sii qayliyo, isxagxagto, jirkiisana waan fiiriyay. Wuxuuna ku hayaa intaas waxba ayuu cunayo, casaraad iyo waxyaabo yaryar ayaa cunayo. Waxaana ku dhahay waxba kuma saarno, waxba ma ujeedi. Wuxuuna bilaabay inuu qayliyo, u dhaho beenaale miyaad iga dhigaysaa aniga hadda, dadka dhan sidaas ayay dhahayaan, adigana dadkii maad ka mid noqotay. Anigii naxdin iyo yaab. Wuxuuna bilaabay inuu labada gacmood iga qabto oo uu dhulka lagu iga qaado. Waxaana ku dhahay mudane okyaalo la'aan ayaan ahay, haddaan okyaalaan qabinne waxba si fiican uma arki karo, marka okyaallaan soo qaatay iyo golow. Dhulka ayuu tartiib ii dhigay wuuna i fasaxay. Waan iska soo baxay, balse intaana bixinba ninkii waa i daba taagan yahay oo maba uusan iga harinba. Waxaan ku dhahay waan kuu doonaya, soo kuma dhihin okyaalaan doonaya, waan ku fiirinayaa. Okyaalaha ma dooninba weli. Wuxuuna bilaabay inuu ooyo, qayliyo, isxooqo weliba si zaa'id ah. Uuna dhaho intaasna uu ku hayo ii caawinaya, caawisada ayaan u baahanahay, wax ayaa ii cunaya. Gacanta ayuu ii qabtay. Markaan xaaladdu waa igu xumaatay waxaana bilaabay inaan qayliyo. Wuxuu igu dhahay waxba ha qaylin, aniga kuma dilayo kumana cunayo, keliya waxaan u baahanahay inaad ii caawiso. Anigii ilin ayaa igu soo istaagtay, balse alxamdulillaah asxaabteeda ayaa waxay waceen booliiska amaba laba nin oo security ah. Albaabka ayaa soo fureen, ninkii ayaan ku kor dhacay. Ninka intaas wuxuu ku wadaa isxoqid.
markii dhan waan yaabay ninkan wax ka khaldan intaasna wuxuu ku hayaa bal ii caawiya oo qaylo iyo oohin waxaan la kala garanaynin markii booliiska ay yimid wayna qabteen wayna kaxeeyeen anigii aad ayaan ula yaabay ninkaas iyo wixii ka khaldanaa waxaa news ku arkay in ninkaas la geeyey isbitaalada dadka xanuunsan waxaana dareemay in ninkaas wax cunay ay ahaayeen xasharaad yaryar ah ama wariiryaal gaajeysan oo cunto u baahan markasta oo aan wariiryaashaas arkana waan xaaqi jiray waana ka leexin jiray dadka sidaysan u cunin taasna waxay ahayd qiso igu dhacday aniga mar aan aad u yaraa